anigoo magacayga la yiraahdo Cabdirashiid Warsame Kadiye kuna magac dheer Weylood joogana degmada Woodward waxaan aad iyo aad mahadle Allah nasiye horta waxa soo dhimcay aad arkaysid goobtan aan taaganahay oo ah balliga weyn ee Woodward oo biyo aad u laxaaliyay hurdaan nimcada Ilaahay baa nasiye waa ku mahadinayaa walaha marka labaad saxaafadda maanta aan qabtay iyo shirkadda maanta qabtay waxaan inaan kaga hadlo hadalka soo yeeray madaxweynaha ninka isku sheegay Silaayo maamulka Soomaaliland ee SNM hadalka soo yeeray ayaa doonayay inaan kaga hadlo iyo Soomaalidinimadiisa inay hadalka ka dhageystaan ama wax garadee waxaan u leeyahay beesha hayaagay magaalada aan u naqaanay deegaanka kuwa ceebtana aan lahayn wax garad sharaf aan ku naqaanay waxaan u leeyahay goobta uu Silaayo hadalka ka yirina wax garad ka joogo waxaan safilayaa inaan wax garad hayaagina wax weydiisan Silaayo taas waxa weeyaan waata waxaan leeyahay anigu ma qabo ceegaag waa magaalo ka tirsan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxayna degmahaan uga tirsan tahay degmada Woodward taas waata Caynaba oo la siman oo iyaduna ah magaalo hoos tagta gobolka Sool xaqiiqada hadii la doonayo waa degmo hoos tagta gobolka Sool oo kamid ah degmooyinka Soomaaliya marka inuu maskaxda ka khaldo si ay hayaag isu qabsadaan ayuu doonayaa waxaan leeyahay beesha hayaag waxaas wax la dhageysan kara maahe ka waantooba Caynaba inta la idin hoos geynayo Woodward oo Tulkiin joogo iyo Hurufadhi oo Tulkiin joogo degmo ah labaduba waxa weeyaan hareeraha idin ka xiga aniga kula hadlaya waxa weeyaan waxa magaaladayadu ceegaag badi waa magaaladaydii laakiin magaalada beesha inta kor janaaleeda waa ku dhigan tahay ceegaag waxay ka tirsan tahay Woodward iyago maamulka SNM oo looga wuxuu daraad ka sameeyay aaga hore ee reer miyigu wada dego waxay ka sameeyeen ciidanka qorlugda ay degan ay ka sameeyeen reerahay mirayeen ee waliba qaar ka tirsan askarta meydkoodii iyagu ay iska dileen oo saxaafadda la tusayay baanu degmo noo soo magacaabay wax la dhageysta ma waxaan leeyahay beesha hayaagay aanu walaalaha nahay wardad aqli leh oo sharaf leh oo muxuu ahaayay oo qadiima baa la idinku yaqaan walaalayaal waxaas wax lagu hadlo maahe ereyga waxaan oran lahaa adeer degmadaada naga nasiinaysa adigu waxa ku noqoto intaasaan leeyahay iyagu oo xumaandeeya qabiil aan leh maaha ama xumaan aan ka filayo waxaan la filayaa boqolkiiba meesha waxa ka yiriinaan hayaagna waxa weydiisan wax garadkiisuna weydiisan wax garadka hayaag waa wafuuda ku qulqulaysa shirkad taleex waxaad ogaataan waxa la bari ka maalin yaan la oran meesha nin rag ma joogin nin baa ku maamay meesha rag ma joogin yaan la oran waxaan leeyahay bari ka maalin marka uu lacagaha la soo galo ee uu ku dadka habar heshay degan yahay guriga ka dhista oo barkada ka qota idinkoo sida Falastiin dhagax tuurayo mudaharaadayo oo baad arki doontaa haddaad markaa sida Falastiin bari dhagax tuuri doontaan haddaad xortiin oo dhulkiinni haysataan waxa aad sheegaysaa nala soo gelin Ilaahay baa nimcaydi siiyay degmo bari mayso khaatumaaba u ogol degmo marka sidaas aan anigu walaalahay ku waanin laha waxaan leeyahay wax garadka hayaag arinta dib uga tashado hana ka fiirsado anoo filaya inayna warkiisa kuba qalacsanayna soo qaadista uu soo qaaday inay ka xun yihiin waayo waxa la yifindhic ilma xalaal ba mise waa xaraan ku xuskiisa aba xun hadalka Silaayo waa findhic waa xaqiiq marka waxa weeyaan war cadowgiina arka wadarkii waad ogeydin og sidoo idin dhigay marka waxa weeyaan intaasaan doonayay inaan shirkan jaraa'id u qabtay insha Allah ta'ala walaalahayga ceegaagna way waanay u noqon doontaa macallinkii wuxuu dhigay dhalan wadaagane isticmaalkii naga dhoofay iyo galkii baa dhalay